assalaamu calaykum. ciidamada dhulka ee dalka maraykanku waxay sheegeen inay soo saareen kuna guulaysteen laysar u dagaalamaya sida boobayaasha culus oo kale. laysarkan ayay sheegeen inuu yahay mid ay ku kalsoon yihiin muddo dheerna ay tijaabo ku socotay. shaqada laysarkan ayay wasaaradda gaashaandhigga ee dalka maraykanku ku sheegtay inay tahay inuu la dagaalamo qalabyada tiknolojiyadeeda cadowga. waxay sheegeen laysarkan inuu ridi karo rasaas bir ka samaysan sida boobayaashoo kale. dhanka daroomadana uu kula dagaalami karo laysar, weliba haddii qalabyadaasu ay yihiin kuwo u badan caagag inuu ku gobi karo qalab kulul uu isticmaalayo. laysarkan ayaa waxay ugu magac dareen tactical ultra short bullshit laser, waana mid ay indhawaalaba tijaabinayeen sida ay sheegeen. waxay sheegeen inuu laysarkana la mid yahay kuwa aynu ku daawan jirnay filmaanta science fictionka ee khiyaaliga ee maraykanka. marba haddii ay ku guulaysatay dowladda maraykanku inay soo saarto laysarka khiyaaligana, waxaa looga baahan yahay inay shaqada ciidan ugu yeerto dhallinyarada maraykanka oo iyagu oo kuwa ugu badan ee daawado filmaanta khiyaaliga ah ciyaarana giimam kale oo khiyaali ah si ay ugu dagaalamaan mustaqbalka dhow. ma sheegin wasaaradda gaashaandhigga ee dalka maraykanku inay laysaradani haatan shaqo gelayaan, waxayse ku gaabsatay mustaqbalka inay ku dagaalami doonaan. waxay sheegeen laysarkan inuu ka awood badan yahay hub walbo hore loo isticmaalay in ka badan 1 milyan oo jeer. ciidamada badda dalka maraykanka ayaa iyagu bilaabay laysaradan oo kale inay maraakiibtooda dagaalka saaraan, mase aha ilaa iyo haatan kuwa ay adeegsadeen. waxay sheegeen ciidamada badda dalka maraykanku inay uga baahan yihiin laysarkan inuu dhulka soo dhigo gantaalada cruise misailka ah. arrintaas aynu ognahay inay noqonayso mid ku adag qaabkan sida aynu qiyaasayno, balse waxay sheegtay wasaaradda gaashaandhiggu in lasii horumarinayo laysarka ay haystaan ciidamada badda ee dalka maraykanku. waxay sheegeen inuu u baahan yahay laysarro kala duwan, awoodooduna ay badan tahay. sida qoraalka ay ku sheegeen, laysarka ciidamada badda dalka maraykanku haddii uu helo laysarro kala duwan iyo awood badan, waxa uu ku guulaysan doonaa mustaqbalka dhow inuu dhulka soo dhigo gantaalada kruuska ah. shaki kuma jiro daawadayaal innagu inaynu nool nahay qarnigii 21aad, tiknolojiyado badanina ay soo baxayaan, balse wax walboo laynoo sheego ayay wax weyni ka dhiman yihiin. tiknolojiyadahan laynoo sheegayana waxaynu aamini karnaa oo keliya markaynu ku aragno furumaha dagaalka. xilligaas aynu ogaanayno wixii ka runa iyo wixii buunbuunina. innaguse marba haddaynu nool nahay waxaynu indhaha ku haynaynaa tiknolojiyadahaas iyo mustaqbalka dhow shaqooyinka ay qabtaan. daawada adiga ma kula tahay laysarkan mashigaanka oo kale ah inuu furumaha dagaalka guul ka soo hoyayo? fadlan jawaabtaada nagula wadaa qaab commentiya mahadsanid.